waxaad ka mid ahayd dadkii maanta ka qayb galayay aaska allah u naxariistay madaxweynihii hore cali mahdi maxamed garoonka intii lagu sugnaa waxaa jiray shaqaaqo yaroo dhacday oo ismariwaa ah arrintaas maxaa nooga sheegi kartaa nin horta waxaa waa jireen infati laakiin dawladdu nabadgelya ilaalinaya yiraheen iyo guud laakiin qaabka markaad fiiriso ani saaka markaan kasoo baxa xaafadayda hadina bajaaj iska soo qaatoon imaadaan rabay meesha yanaasa ugu dukada iska naqdo jidkoo dhan waxaan arkaa wax socdo ma lahayn magaalada dhan way xiran waa soo lugay magaalada dhan la xiro waxay inta xataa airport u dhow iyo meesha wax lagu aasaa inta u dhow in la xiro oo nolosha kale dadka aan la xaq sideeda u socoto markaan muddo soo lugeynay waxaa helay laba lugaale bajaaj iska wato hadaan inta u socdo inta adeer ma isii dhaweysid adeer anaba ku istaagay soo bax nin mooto laba lugaale wata ay keen airport markaa imid waa dareemi kartaa jawiga amise waa afar askari ay joogto laakiin hadda baabuur qafilan iyo dhamay soo dhigay idii la galayo see wax u jiraan maanta waxaan arkay madaxweynayaashii hore duubaab culamaa udiin oo jaziira agteeda banaanka joogaan waxay janaka amisom wuxuu yidhi amra waxaa laygu siiyey inaan qof hub wadata ayna geli karin beedka laysma aaminay waxna waa geli jireen dadka igoo hubkooda wato waay maanta keliya u geli waayo maya madaxweynaha imaana iyo soo imaanaya looga tegi jiray idoo hub la wato meeshaan lays aamini maa ma yuraani amarkaas janarkaa lala hadlay waxbaa adiga xeerin markii dambe amarkaas dawladdaana siisay ay dhaaf waayeen dawladda lafteeda qaar waa ogyaayeen qaar ma ogo markii waxay gaartay madaxweynaashii hore inay yidhaaheen maba tegaynaba qaraabadina inay yidhaaheen inta maba lagula dukanayo dawladna ma ku dukanayso mucaaradi maxaafid camal waa ekaatay labadaba ina noogu dukanay mashaahidkeenaa geysanayna janaasadii la isku qiraa ha qof liyaba ku dukanay xagga kula dukanaa shacabulahaga faraha badan aan salaadii ku dukanaya iyo ciidamo badanna airbortka waa taqaana waa meel aada u nugul in wax ka dhacaan sideedana amisom dadka muddaa laisla noolaa waa la isbartay ciidan halkaa noo deganaa jiro unisom waa xustaa markay joogto ciidamo talyaanigaa deganaya aada u nugul yahay askarigaas oo ciidamadan nabad ilaalinta adduunka o dhan dadku hadday bartaan talyaanigan dhalinyaraa ilaalin jirta oo lacag ay sii jireen waa ciidankii loo keenay inay nabadgelyadan ilaaliyaan habeenkii safaaradii kusoo aruur jireen dada ama hoobi kusoo tuura ama xabad lagu ridaa inay askari ka dhinta ma rabaa lacagtoo iska qaataan rabaa adinkaan inda nabadayna waa leeyihiin marka dadka ciidamadii naata ka tirsanaay ay bartay inay lacag siiso si iyaga loo ilaaliyo oo xeradooda wax lagu soo amisom maxaad u malayna xilima kuwaana iga celi karaa bilaawata airbortka airbortka waa nugul yahay shidaalayaal diyaardayaal in wax dhacaana mar aan runtii aan ka baqnay nasiib wanaag markii dambe amisomta lafteeda markay aragtay xaaladdu inayna fiicneen waxay dhaheen qoryihiina iyo tignikadiina iyo sabanadii iyo bustool waxaa istiin la gala la dhaaf xaaladda dejiya wixii oo dhan wacal kuwii dawlad ka socda magaal kulli hubkaa lala wada gala marka haddana waxna ma dhicin marka meeshaan dad u socday inay dad dilaan ama waxaleeyaan ma jooga nin walba wuxuu islahay ka qayb gal laakiin qof oo qoyskiisii ahoo oo ka dhintay ama saaxiibkiisa oo dhintay inuu janaas ku dukada la rabo haddana aan kalsooni ku qabin meesha waxay naqanaya in marka horeba inaan waxaan dhibkaa la keeno caadigeeda laga dhigo maba dhici lahayn waxaan laakiin amisom keliya ma aha ciidamada nabad ilaalinta oo dhan meesha ay tagaan waa la falgalaan muddo yar kadib artaygaa rasaasta laga iibsadaa adduunyada meelaha ay joogaan ama soomaaliya askari kasta xor waa asoo nabado kastiisaas inuu waddankiisa ku naqdo dadkay u tagaana waa fahmaan marka waa la isfahma markii dambe maxaa ugu wacana la dhihi karaa barsoore maadaama siyaasaddana aada la socoto iyo xaaladda magaaladu ay ku sugan tahay in iyadoo janaasadii taallo oo madaxweynihii tacsidiisa waddanka ay taallo xaalad noocaasa janaasadii ay ka dhacdo horta anigu siyaasadda aada uma dhex galo laakiin waaqica qof magaalo jooga waxsaan u arko waxaasaana ila yihiin ma fiicneen go-aan qofkii qaataba go-aan fiican ma ahayn marka xaalad oon jirin qof inuu xaalad abuuro rabay ahayd haddii isku dhacay haddii hal cunug oo xabad ku ridi lahaa airbortka hor amisom cunugii dil leeda dib u badato iyadaa lagu ridi laha amisom waa carari leeda dil lama sirba lagu ridi meesha ma jooga diyaarad sooma degtee airbortka xamar lama imaan karaa yaa wax dhibkaasoo dhan ma imaan lahay marka wuxuu ahay go-aan aan laga fikirin qofka qaataba qof raba xataa inuu iska horkeeno shacabka iyo muxaafid mucaarad wax un inay abuurmaan qof rabay uu ilaagiya laakiin qof maslaxa ka shaqeynaya uma eko